maanta waxaan ku suganahay deegaanka loo yaqaano Silver Lake oo ka tirsan gobolka Minnesota ee Soomaalidu ay ku badan yihiin dalka Mareykanka deegaankan aan maanta joogo oo beeraley iyo xoololey ahi waxa uu magaalada Minneapolis u jiraa ilaa saacad iyo dheeraad haddaba dhulkan hawdka ee Mareykanka ku yaala nin Soomaaliya xoolaha arkaysaana ku dhaqda ee ariga beer aad iyo aad u ballaaran oo deegaankan ku taalana isaga iskale muddo dhowr sanadooda ayuu beertaasi tabcanayay iyo xoolahanba maxamed caalin gaabane ayaa ninkaasi la yiraahdaa odayga wuxuu iga warramayaa bal hadda sida beeraha iyo xoolaha loo tabcado dalkan Mareykanka iyo waxay kaga duwan tahay farsamadii Soomaalidu xoolaha ay u tabcan jireen iyo beerahaba maxamed baan noloshiisa miyiga Mareykanka ka sheekaysanayna maxamed aad iyo aad baan kuu salaamaya iska waran waa fiican ilaahay alxamdulillaah waa ku faraxsanahay inaad beertaada nagu soo dhaweysay marka la yahay nin reer miyiga Soomaalideenu waxay filayaan nin miyigeena jooga miyiga Mareykanka ka war miyigaan ku soo koray oo Kismaayo beeran ku lahay baajiheeda balweynana waa ku bartay way xoolihiina arina waa dhaqi jiray hooyadii ay u korisay waxay ku kala duwan yihiin male waxay ku kala duwan yihiin ma jiraan waxa kaliya ku kala duwan yihiin dadka caruurta la dhalaa barta shaqada waalidku baraa way caruurtu marka way dhaxlayaan adooga gurigaas waxa iska dhahay Henry marka abisa awowgiisa meesha lahay awowgii baa beeraley iyo xoolaha asaas beer u leeyahay isaga beero meesha ku leeyahay way isaga abisa lagu dhalay ilmihiisa hadda joogo tiro badan inaga bas laakiin saas u baahayd Soomaa Maxamed may waa ka duunin anaga markii hore oo miyiga la joogay caruurteena way joogi jirtay duulaankii ku galeysay eelkay shubaysay markii dambe iskoolada la furay caruurta waa ka tageen family magaalooyinka la waa buray family burburay Soomaalida way hadda xoolahan aniga jooga meeshan milyan saal lii gaaray hadda oo diiday way qof iga dhaxlay ma jiro maraba baadiya meeshan maraba gabadhiidan keenay waxa jir kuma noolaa kari maxamedow marka Mareykan adigu goorma soo gashay 2004 2004 laakiin meeshan waxaan imaaday 2000 waxaan imaaday 2011 de marka ilaa 7 sanadood baad joogtay Mareykan markaa markii aad beerta markaan deynta qaatoon beertaan gatay oo deyn baad ku iibsatay miyaa oo miyaanay beeraha Mareykanku markaa aad qaali u ahayn markaas qaali waa koray socotaa hadda waa qaali hadda laakiin koray socotaa 9 sano jooga koray socotaa markaas koray socotaa waana suubi wax lacag badan aan geliyo deyn kala adii wuxuu iska hadda Ilaahay iga dhameeyay marka bal hadda adeegyada aad halkan ku bixiso xoolihii baad dhaqdaa waanu aragnay beertiina waa tabcataa maxaa kale qabataa ma hilib xoolahan xoolahana waad qashaa waa qalaa marka kawaan waa meesha warshadahan ay Soomaalidu aadayso oo kale waa ka fiican shaqaalaha ay shaqeeyaan saacadu waxay ku shaqeeyaan $28 dadka professionalka ay shaqeeyaan oo imse qof Maxamed ku shaqeeya 6 qof oo cadaan waa wada Mareykan way oo Soomaalidu maxaad uga shaqaaleysiin weyda qaar badan baa shaqaaleysiin hudada iyaga inuu ku leeyahay laakiin Soomaalidu way isku daydaan cid kugu dayday horta ma waxaan kuma dayanayaan waxay rabaan waxay isaga daydaan waxyaalaha dhibaatada ah iyo waxyaalaha adiga laqdabada inay tahay u maleynaayo waxyaalo aan ku farxaynin oo dhan isaga daydaan way maxaa kamid ah مثلا إنا كفيل تجو ولا شيء كي ما تلن وقفك وسلمان رشتي ما قريت كرتين وشقيستي إنك رحتها هاي ما تحسس كارك مركان تجو مقالد محمدو مركي عد هل كانوا سوقورتي بيرتم يشقدي عد بلوضي دمي مريكان ما تشوقي تشرين كي سوماليا طبعا وادي يشقدي كسوة في الحدي معك هو أتكا هرتا مركان إمزانية 5 سنة 4 سنة أنجوبي أو حركي أو كسبيرنس مركز كوران صوفا مبارا إجارتي مركي هوري واي 2007 كيان بير إجارتي
meel yar aan jarto adiga intaan afar eekar aan jarto oo badii ku taala marka meesha ku tababarto qudaaraan gadi jiray suuqyada fadhiisan jiray waxaad aragtay wixii soconayaan markaa ayagaasaan ku tababartay dadkan meesha ka imaanayaan arkay cadaankaan arkay noloshoodii dadkan dad run ku dhaqmaa inay yihiin aan arkay oo daacada oo qofkii wanaagsan la dhaqmaaya anigana waa ay jeclaadeen marka ayagii yaaba dheheen badiinan kula raadinayna maxamedow markaa inta imaaday waxa dhib ahoo aan dareemay waxay ahayd equipmentii qalabkii cawskan waa la jaraa soo ma jeedi cawska waa la jaraa howday noqonaya meeshan barafka waa la jaraa barafka waa la qaadaa haddii baraf ku dhaco waa buuxsamaya geedkan waxaa waaya brubena la dhahaa geedkan hiiduu leeyahay xoolaha meeshaan waa la siiyaa marka qabowgu badan jiro maxaa la siinaya marka xoolaha kuleel xoolii baa la diirinaya meeshaas lacag ku baxaysa isagana waa kana hadda bashe saacadii isagana brubena la dhahaa ama ma ogin soomaalidu hadda waxaan ay baran doonaan waxaan wax dhib le maaha waa wax dhib yar waaye waa kas hadda meeqa galaana ku jirta mujadido oo markaa sideebuu u diirinayaa deegaanka halkan tubuu leeyahay halkaasi ku jirtaa waa daarmaysaa subada saacada ku jirta gudahaasa saacad ku jirta la daaraa la dheereynaya la daadinaya maxamedow waxyaabaha ugu horeeya la qabsiga waddan kastoo la tago muhiimka u ah waxa ka mid ah luqadda adoo af ingiriisiga ma taqaanin waa laga turjumaan markaan bilaabay ninkii iga turjumaan hadda basoo wadaa laakiin dee imika waad shubtay soo ma ma aqaan weli wallaahi ma af ingiriisiga waa dadka adiga nacnac moogiye af ma aqaan haddaa see dadka ula macaamishaa hawshan u wadaayo dadkan macaamilada arkaysay haddaba waa kaasaa soomaalidu hagaasi macaamiladu maaha af uma baahna macaamiladu waxay u baahan tahay run bay u baahan tahay bas wax kale u baahan tahay male dadka ii shaqeeya hataa mindhicirka magac soomali caloosha ku taqaan adiga xamatigan ku taqaana xoolaan qala aniga waana aqaanaa uurta ku jirtaan aqaanaa soomaalian kusoo bartay laakiin halkaa magacay leedahay wax walba xameetida magacay leedahay wax walba magacay leeyihin wadnaha ciidow leeyahay magacuu leeyahay waxaasoo dhan ayaga way yaqaanin afka ingiriisiga anigu kuma aqan waana wada shaqaynaa waxna ma qaldi karaan waa ujeedaa markay qaldaan joojiyaan leeyahay run waa lagu shaqaynaa anaa macallin u ah meesha anaa xukuma kaala buggan seexa kutusay meesha waxay ku socotaa aniga aidiyadeyda halkan maxamedow markaa waa xafiiskaaga miya halkan maxaa ku qoran hadda feeriday ingiriiska waa taqaana day kaarkis hoogis waa geedkaan hadda kusoo tusaay waxaasoo dhan anaa soo gaday inta maxaa kuular waa qaboojiyahaas temberajarkiisa iyo wax walba waa shaqaala waa ishaqeeyaan aniga waxay suubinaya kanday waa kana wixii jiirka soo gelaya qashinka soo gelaya warqadana lagu kontroolaya iyadana jiirka iyo balaayada jiirka soo ma taqaan dooligii waa jooga meesna waa soo gelaa adoo ku jiro soo gelaaba marka duu hilib tabtaan dhakhtarka wato dhakhtaraa jooga meesha waa runa dhakhtarka waa deegaanka waa ku badan yihiin miya aad u badan jiirkaa jooga oo dabagaaliyaa jooga waxaande mujadida halkan kilflora la dhahaa kilflor sheet waxaas anaa saxiixay waa kan saxiixay wakaas marka waxaad leedahay wada shaqaynta run unba u baahan run u baahan ingiriis ma baahan ingiriiska ninkii yaqaan horta waaba sii faa'iida laakiin oo wuxuu bara karaa kan si loo suubiyo bara karaa iyo kan xoolaha marka la gowracayo halkan ee la qalayo maxay kaga duwan tahay xaggii waddankii sidii loo samayn jiray muslimka haddii soo xoolay anaga bismillahi raxmaan raxiim ma anigu soo ma gowracaya intaas uga duwan markii la soo qabto adigana wixii ina barato waay waa kanday ujeedido waxaas isku ragamo waay markaas neefka inaad qasho rabto kana aad diyaarsaneen markaa kan diyaariso oo soo qabato oo neefka lagu soo qabto qof xoog badan kuu soo qabto neef xoog badan waaye
وارجود الدواء ووي كأني وكوا وي حوق لي واي أنا حوق قد كوكا يلي الواجر لكن حوق لي أرجان أنا حوق مركي كاسو كوكا بسوا بحة كان سوق هذا حبده هنا وكوانا وبارود حبد معها واي وكوانا ذي يقول بدنا واي بهذا صوصة باجنا واي وكوانا يقول وبعدها سأل قلنا يا هل كان قلنا واي سأل قلنا ذي سأل قلنا كان له حلا كان مثل واحد كان لجية لا بواي كان واي بختي كير سويات ومركا نيفك ويقابلنا يسامح نيفك يا جماعة مركزها توجيزنا حق اللي جوا جورع وواحد كويدي محمد maxay kaga duwantay markaa sideenii inta neefka la soo qabto oo lugaha la qaban jiray neefka aniga markii hore waxaas markii hore nimanka waa diiday waxaan sheegay gaaladaas u banaysay markii neefkii la qaban waayo dhibaato dhacday haay oo dad badan hadday soo tagaan nalagdi waayo oo haddana isaga dhibto caadiisa jaabaysay oo neef carab intay imaadeen gowracdeen meeshaan ama markii madaxii bismillah allahu akbar qaw madaxu ku gooyay neefku waa orday madaxii u baa waatay marka halkana lagu gowracaa markii la gowraco ha meeshaas lagu gowracaa moogtahay halkan halkan markii lagu gowraco haddana lugtiisa lugihiisa waxaa la sida kuwan mujadiyo kana ku rijiida wala la sana halkana marka la saaray marka la gowraco ma wala gowraca dhulka lagu gowraca markaas halkana maxay tahay waa holdina la dhahaa markuu soo galo madaxiisa inta la gelina si oo orgin asoo soo gala markaas birtan saas lagu leeyahay halkan la soo gelina baasha dhag lagu seena markii dhag lagu seesana leeyahay waa soo jiidanaad markuu gagabo halka gowraca marka horena de halkaas ku xariisay daaqa xira inta u taallaa inta ku jiro bal hadda aynu gudaha eegno okay birtaas waa furan tahay markii la soo geliyo xag ka soo galo inta lagu xiraa markii inta soo galo ku istaaga biyaha waa kuwaas ugu jiraan biyaha duu saacan dawladda ma ogolo sakaraadka dhigay kuleeyahay biyisiinay marka maalin walba way cabo markii ayaga dhaqso marka la gowracayo laba gowrac kartid ba ilaa biyaha buuxisay meesha gaalada cadaanka imaana way feerinayaan oo yaa idinka eega markaa habkan aad raacaysaan dhaqtaha joogaba ma baqali karo waxyaalo dhaqtar joogi mar walba ari la qariyo dhaqtar on qalid aan sameynaa iska joogan leeyahay talaadada waxaan qalaa talaadada iyo khamiista hadda khamiista waa ka boodi khamiista waa qalaa halkan markaad joogto digada iyo sideedii baa kuu soo uraysa waxaad moodaysaa xeryaheennii arigoo waa ka daran tahay xeryahii anigaa baroonay markaas ma jijiyo laakiin tan waa la dhaqaa cawsa la dhigaa gogol loo dhigaa cawsa loo dhigaa badinay dhahaa marka halka loo diiriyana waa halkan marka dhaxantu dhacayso maxamedow xagga beeraha way noo iman doonaa iyo bal hadda kuwii Soomaaliya waxay kaga duwan yihiin iyo farsamadii xagga aad ku taqaanay iyo taalkan laakiin ariga haddaan wax yar kaa sii weydiiyo imise neef baad qashaa wiigii oo kale 32 35 hadda ariga marka adigu xaggeed ka soo iibsataa marka hore meel walba waa keenay haddaan waxaadna waa keenay oo waa dalbanaysaa markaa waa dalbanaya bixis waa qana warqadana dhii keenay fiiri riskiisa waa kana dad u sheeg ujeediyo average price 99 pound kana 162 pound okay tokan ka qan wixii intaan ka badan ma yeelay aniga waa u sheega marka hore u sheega banku intaas uu soo gadan arigana wuxuu leeyahay stamp wuxuu leeyahay health number uu leeyahay wax jira leeyma keeni karo maxamed waxaad iga warantaa ma kalidaaba markaa beertan ku nool imanka cid kale kulama nool oo shaqaalaha inta yimaadaan bay shaqeeyaan oo dadna waa tagayaan miyaad ku cidloon markaa waa rabaa aniga dadka markii hore iska lama soo socon jiray markii hore ma ahayn aniga waalidkayga ay baray dadka u taga waxaa la yidhaha faqasalaan ma maqasho weliga maxaa la yidhaha faqasalaan ma maqasho adiga marka maxaa isu bedeshay adiga faqasalaan ma ahay aniga
aniga qofkaan aqaano isku fiicannahay maalin aan isagaa weegi ama labadii weeg inta kalena dee howlahagaad ku foofay dad kale maxaan dhahaa dadka kale dariskan kan iyo kan iyaga ay imaad anigu ma tago xataa waa dariska dawada Mareykan Soomaa waa Mareykan la ku jecel inay imaadaan rabaan way aniga ma tii kari ma keeni karo hooyada barti yaryarka aabay ma arkin aniga way adeerkaaba marka beerley ahaa miyaa Maxamed adeerkii beerley waxa markii neefka la goorco la surug oo halkan la saaro maqaarka laga bixinaa way waa caloosha iyo maqaarka dhakhtarka imaanaya calooshiisu fiirina beerka uu fiirina kaliyaha fiirina wixii aan la rabin madaxa inta lagu tuura geedkaas oo halkan waxa la rabin ma jiraan meel neefkoo dhan labada ma lama rabo adiga waxaan wax dhib badan waayo ayaga ay yaqaaniin wax dhib badan waayo kambaniyaal iskale way maqaarka kale aniga waxba hadda ima taro xagga Soomaaliya maxaan u lahay ma ogtahay waa runa aniga waxba kama helo maqaarka wax kama helo madax ma taaba karo caloosha lafteeda la ima ogolaa waxay rabtaa qalab la keeno warshadaha lagu dhaqo aan laakiin bas neefka hilibka xaggu saaran yahay waa loo shaa isagoo maqaarka qashinka laga tago geedaas la soo qaadaa xagga saaran geedaas waa taad mishaarta moodo markaas neefka lagu kala goynaa waxa looga dhigaa xageed u iibgeysaa markaa Maxamed magaalada kuwa Soomaalida iyo Carab iyo waxaas ka gada muslimka bis waa xalaashi markaa hilibka xalaasha gartay bal hadda banaanka aynu tagno halkan horta may freezer-ka itus halkan waxa weeye qaboojiyihii miya waa freezer-kii cooler waay mar cooler waa qaboojiyihii ma cooler waxa uu hayn karaa hilibku wuxuu gaarsiinaa inuu qabow noqdo markuu qabow noqdo kadib la qaadi kara dhaqtarka baaraay way birtaan la suraa hilibka way marka birtaan soo suran aakar suraa way qabowna waa daaran way marka wuxuu gaaraa 33 oo ibka hilibku ma jira Maxamedow had isaga baqti weeyday marka maya waxa sokortu kuma socoto lama fikir waxa laga fikiraa waa wax Soomaaliya dumiye waxa hadii la dadamiyo waa laba marka inuu socdaa fiican nolol kastoo kugu cusub waxay leedahay dii cajaayibaadkeeda iyo waxyaabo la yaab leh waxyaabo aanad filim ba laga yaabaa inay soo baxaan markii ugu horeysay halkan teemay 9 sano ka hor maxaa kuugu darnaa ama kuugu la yaab badnaa markaas waxaan ahaa qof oo ka yimid ma ogtahay aniga Soomaaliya markaan ka imaanayay dhib badan ay ahay way qofku markuu dhib hayo oo dhib ka yimaado oo helo meel seexdo gurigan waa guri fiican oo nadiif ah way kana adaa iibsaday beertu la socdaa way gurigan seexday hurdan ka dhigayba dhib ma way laakiin waxyaalaha abi ugu daran ilaa hadda ay haystaa waxa waaye Ingiriisiga dadka yaqaan dhib ugu haya aniga way waxay rabaan maanta dhan cadaanku waa sida Soomaalida xagan horaan u yara socon waa sida Soomaalida waxay rabaan maanta dhan su'aalo badan ku weydiinayaan way adiga maxay ku weydiiyaan markaa oo financialkii ka hadlayaan waxay ka warqad soo buuxiyeen way cashuurta markii la xilinayo dad cashuurta u geeya jira oo ii buuxiyo cadaan waxa soo dhamaa dhib igu haya waa igu adagtay taas ay igu adagtay ilaa hadda igu adagtay ariga imisa neef baad haysaa waa badan yahay dookana meeqa waa hadda 65 waa umleena inta 65 ba hadda xirada ku jira marka de dhulkeeni reermigu khaati waxay ka joogeen ariga dacwo ka cunto iyo waraabo ka cunay waxa ma jira halka Soomaa waa buuxda dawaco way meeshaan taagan taawla ariga meeshaan ma geli karto way ما مغش حرتا محرمه هاي وابي حرية أقولك علا سجى سليك ردي كحرية سليك ووركسية إلا حق إلا كر إلا جد كاس ووركسية سكشن كاسو ضاقة دواء مسجل كرتوا واي ورابع ندم بتشرو واجري مسجل كرو حقوق مسجل مثلا كبودي كبودا ورابع ميشرو هالكن واجري بهالبنا جرى كحن واي بهالحنا جرى أو حنا أو وحير بنا كذا وصلت مركز وحنا في بختي حتى waxaad iga warantaa dhaqanka dadka beeralayda ee Mareykanka ee deegaanka kula yaal ay istaqaanaan ka waran Soomaalida maxay kaga duwan yihiin wallahi Soomaalida hadda uma dhowa ma u dhowa
laakiin Soomaalidii hore oo aniga markaan dhashay هاي iyo dadkan waa isku si واي dadkan waa dad run ku dhaqmaya واي been ma yaqaanin laqdaba ma yaqaanin اسك دبورك iska مجرو dawareeg ma yaqaanin qof shaqo ka faanaya male qof walba waagu intuu soo bariyin uu taagan yahay sheekh anaga aragtay sheekh waxa ku leeyahay waa qaylushana oo ku leeyahay qaylush ma taqa هاي محمد waxaad iga warantaa reer miyigeena waa la martiyi jiray halkan ma la isbartay horta Mareykanka ha fahmi dad socotiin ku yimaadaan aniga ha maya aniga dadka Soomaalida waa ka baqa aniga way waa ka baqa aniga waa ka baqa maya Soomaalida kaliya ma sheegayo maya markaas xataa laftooda ma aamino way hay ma jiraan dad way rabaan inay waxay rabaan kuwa badan dhaya meeshaan rabaan inay intigeelaan ka qaadaan ay ka dhigaan meel oo la seexdo iyo meel dadku iskugu imaado meeting meesha la weydiiyo wadiida aniga way ma ogol aniga shirar ma ogoliyo waxaas هاي هاي اللي يقول لك ما بحكي انا وتيدس محمد marka guriga dhanay inta leeg kaliya ku nool ha kaliya ku nool laakiin gabadhii ay joogto jirtay mar dhow iga tagtay oo gabadhaad waxay degan tahay Minneapolis ha waxay aadeen magaalooyinka ma qan meel aadeen hatta waxay tiri iska tagaa meesha ma joogi kartid way xaaskaagu ku jooga halkan ma xaas ma qabaaniga way halkan ima joogo Soomaaliya ima joogo way waa iska jooga xaas waa kala tageen waa kala tagteen way xoolihii waynu sheekadoodii si fiican baad nooga dhargisay beertan aad iyo aad ka weyn maxaad ku beertaa beertan hadda waxaan waa wax cusub 3 sano camal ah هاي arigan markii hore aniga meeshaas waxaan ku dhaqi jiray chicken meeshaana waxaan ku tabci jiray qudaar digaag baad markaa halkaa markaan imid digaagan bilaabay way iyo waxaan bilaabay beertaas meeshaas wujida hadda gaduudan هاي waa adiga 2 ekar camal hadda waa halkaa ha هاي adaa leedahay ma ana laakiin waxaan rabaa qudaar ku tabci jiray aan ku tabcaa way inta kalena gelin waxaad beertaa qudaarta qudaar barbarooni aan beeraa wixii Soomaaliya kale caadi way iyadana dee laga iibsado way socotaa ha way gadanaya ha wax dhul dhacay ma leh inta dad soo saarto هاي intada waa muhiim maxamed dawladdu ha sidee u dhiirigelisaa dadka beeralayda dadka hadda aniga 50 ekar waa small aan aniga way waxa 50 acre small small waa 50 qoodi way 50 ekar waa dhulkaas dhan ay u jeedo هاي oo gidaas wax haddana waa iska beer yaroo wax beer yar ku small farmer sha la yiraahdo ayaga waxa la mastaro iyaga ku xol lama taro kuwa weyn oo 200 ekar 1000 ekar waxa haysta wuxuuda insurance yaa la gelinaa insurance-gaas haddii wax ka halaabaan waa investment yaa lagu suubiyaa dhul ay haystaan way qalabka beeraha oo dhan dahab ah way oo dawladdu marka waxba idinkuma tarto idinka beeralayda beeralayda wax fiican waxba lama taro aniga dimoog in wax ingiriisi ma qaane laakiin in wax wax la taro waa arkaa markasta waa ila hadlaan maxaa rabtaa kana insurance ma gashanay hadal ma gashanay ilahayaan waa ku daal 2 goor 3 goor aan galiyay maxamed waxaan aad u jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo kale dadka Soomaalidu fikradda ay wadanka Mareykanka ka haystaan waxa weeye meel aan la isbixinin oo nabadgelyadu xun tahay oo dadku wada hubaysan yihiin adiguna miyibaad u sii degtay marka waxa Soomaalidu sheegaan wax ma ka jiraan hadalkaas hadda aad leedahay هاي waa hadal dhib badan waay hadal dhib badan way oo horay aan dhibsaday waay way raalliga ah haddaad dhibsatay maya Soomaalida aniga hadda waa ku sheegaa Soomaalida been loo waay been sheegay way dadkan ma qofkii nabad geliya هاي qofkii dhib badan way qof dhib badan shaqana ma siinayaan waa ban dilayaan هاي waa xanaaqayaanba هاي qofkii dhib yar dadkan oo kale wali adduunka kuma argan way waa dad masaakiin maqli jirtay هاي عدانكان دسك كأشهادنا مساكين واي والله وأنا حانية هذا واحد كنت سنة قال أنت إبرة السك
والله يحرر بفيري تسكي إبريا أنت اللي يجي محل كله كاي ببريا هاي وجديو كان national opinions of your citizens طيب way وعلى بيع كرمه وويجل أركو ويجل هاي كويديسنا يا مركا لعك كنت $1 $4 ولكن محمد بالله شحاضة يا مركا شحاض ما صدقوا واي واسيا لكن سومالي قفنا صدق سي واي كوي بريش كذا أنت صدق لي ما هم هلاي قفي أنا صدق سي مركا هذه قرقارك أمريكا هو أنا نجينا واكن زي immigration تندس وحصل سؤال يودينا مكبح كري وحنا وصدقوا كل وحاس وصدقوا حتى ويجانا كسب بعيد وكل سوعة مركان فيريو بيجي إلهي على الفون كنت كقدرة مركا واحد لا ضحي ومضي هذا مساكين واي هاي هم مساكين اللي وحن أنا إنه كان ميجرين ووحن ما أنت شكل رولنا لا إله إلا الله عندك هم مساكين بس كان مركز دنبيك جلاية وحسن محمد وقت كانت شقينين الشقة لما يستوى ما بكتو ما حد سكون ما ويليسا ما الشقة دي مرة ما أستوى ما مرة ما أتوه أنا التلفزيون حتى ما قوى واي هردي أي درم هردي كل الجوا شقة دي أستاجي حتى عادين كان يجي ما ماشي سنان لقوا قفكي أو كشقينا لعكت أنكم مسوي أنا وادي قفكي كشقينا لقاه هاي لو بقول كنت نقاه بجري مالنتي بسبب شيء ويجي هل مالن واي ماشي لقاه كنت راضي ماشي لقاه مركايمك هذا دقة أنا لقاه محمد waxaad iiga warantaa dee meeshan wadigan le hurdadaan aada uga helaay shimbiruun baad maqlaysaa gaadhi maqli maysid guuc maqli maysid buuq kale maqli maysid markaa hurdadii waad ka noolaatay maya saacadaha igu yar ani waxaan u baanay 7 saac waay hurda 7 ma hayst markaan ugu bad xalay waxaan seexday markaan cishaa dukada waxay noqotay 10 noqotay waay haddana salaad saac waxaa u kacay 5 wadigii reemii baad ahaan jirtay oo beeraley baad ahaan jirtay Kismaayo iyo balad weyne dadkii Soomaalida ahaa ee beeraha tabcanaya ama xoolaha dhaqanayay maxaad kula talin lahay fiiri ciidan mujida iyo ciid aniga aan ka imaaday wax isku dhow ma aha way taaba wanaagsan taasa fiican waa ciid aad u wanaagsan Soomaali ku taalo meelaha ay Soomaalida ay dhahaan Soomaalida muxuu ahaa barwaaqa cigaagta هاي odayaasha ay dhahaan meeshaas barwaaqo ma jirto dhulkay ku jirtaa halkaan ku jirtaa niyo dadkaasi waxaan ku dhihi lahaa waay iyaga wax u baryayaan ilmahooda iyo iyagu may beeraha intay ka shaqeystaan iyo xoolaha saas dil loo xalay ma dhul halaabay nin walba hadii loo gooyo dhul oo arigiisa ku dhaqdo oo digada iska xaaqo oo cawska u duubo oo dhigo cawska meesha lagu duubo cawska wala duubo ma ku taala halkii waaba abaare maxaa la duubi ma roobka la duubo ani soo barf soo marin aniga hadda barfaan soo marin hadda la duubo hadda cawska ku yaala arigaas marka ma u baahna wax kale uma baahna biyana waa ugu jiraan biyana meesha marka waxaad leedahay deynay ka tashadaan waqtiga ma tashi ma aha dadkaas naftooda qayaanayaan bini'aadamkiina baryaan ku dhibnay waana qayaannimo waxaas ma fiicna dhul fiicanaan haysanaa ما أها بس لا عاجا كنا عاجا ما جرى بس لا واحد كبح عليها أنت ذي كده فينا وكرنا هذا محمد صومالي هرتو ما هذا الهيسا ما كوجي شرتا ما كنا قنيسا حدان أول أنا بتبادع وأنا وحنا كيستلقى قادني والله وحنا جيلها وح أو قليل يدجفت يقمديك عن صوص سعره قلب كيدان عن برتين قلب أو هالقف كوش قينا عن برتين halqof oo ku shaqeynaa abuuraay falaay oo harfaysan ku soo bina goynay si kireynay mid ku soo waaya jawaan ku soo waaya qof kaliya waxa wada soo qof kaliya waxa soo bikaro aan barto meeshan yaala intee lag baad soo saartaa adu galeyday aniga waxa raqiis ku qaateen galeyday qaateen hay intee lag baad soo saartaa 2500 booshal la yiraahdo meesha 2500 oo jawaan booshal adiga waa jawaan yar waay oo kaliya baana yaa kala shaqeeya نما كاستم هاير اللي يلا واي قلبك حتى أنا واسكت ولا حراش هذا ويا اللي مركز نما ويا مركز ما وأبورا وفلا وقوينا كوي جدنا يا إيمانا قادنا ومركز نكي محمد
waxa uu shaqeeyaa Mareykankii caddaa ها hay كنت أنا جاي كرا سوماليا هذا سيء أمسيني مركز براد اللي جبي كرا وشيرة قفل كرا وحبة قفل كرا محمد لو مش هيك وانا سيس عوني أرض بركة وكاغنا وجيدي هذا اللي كان حكم بالله هاي نينكا إن لو شقيو هاي ودسك وشقينا نبت جلي هاي إنه شقي واحد حين مجرى inuu shaqeeyo إن لو شقيو دسك وشقينا نبت جلي هاي ها ودadku ay ka nabad galaan شقالة uu ku caawiyo شقالة أرسجع هشيس العجن كده حيسه هاي لكن فرقين نينكا وانا شقيا نعنع ولا تجينا ذيك هاي ها waa talo wanaagsan أبي أنت اسمه شيء كرت السوالف يقول هلا. مدحوين ياش وشك أنت عليك وما حاجة. غم مدحوين يجا waa fara badan yihiin مسك سبون أوتي وشك واحد كده هاي أديك وحمد تغاني هاي قفكي وحيقانا وحقوصه بناي هاي من نبت جري كرتاعد maxamedow aad iyo aad baad u mahadsantahay kulankaaga aad baan uga والله أبوك جالا نيجي حديقة ساعته أد بدو. فيري ذكر ساك بغين وشك waa igu halle يا fariintaada waan gaarsiinay ها way